maalintii qalbi dhagax uu ka tegayey aeroboortka magaalada muqdisho laba nin oo saraakiila ayaa kuu timid laba nin ayaa kuu timid oo mas-uuliyiin ah oo kugu yiri nin al-shabaab ayaa ka baxaya aeroboortka u socda gaalkacyo labadaa nin yay ahaayeen mudane subjectiga meeshaan u imaanay wuxuu ahaa wax kale qalbi dhagax mashruuciisu waa wax kale amnigee lugta ku haysaa mudane I will never answer that question waayo ma ka jawaabayo ma rabo maxaad uga jawaabi weydoo qaranaysaa maadaama walaal soomaaliyeed aad iibsateen barqadii si faahfaahsan waqtiniyo adayna waqti iska dil ana waqti iga dil I will never talk about that waqti badan baan u hayaa markay dhacdo muwaadin soomaaliyeed in la iibsado amxaaro loo dhiibo marka waqtigu iguma yara adigu inuu kugu yaryaha laga yaabaa labadii sargaal oo kuu timid yay ahaayeen cabdullaahi sanbulooshe badar cabdullaahi sanbulooshe waxaan jeclahay inaadan ka bixin inoo su-aasha ka jawaabtid fallaar gelgelisho cidna ogama harto yaa ka mas-uul ahaa labadaa nin yay ahaayeen hagaag cabdullaahi sanbulooshe khadka ayuu ka baxay xaq buu u leeyahay inuusan su-aasheeda ka jawaabinin annaguna waxaanu xaq u leenahay inaanu weydiino qalbi dhagax waa muwaadin soomaaliyeed inta aanu nool nahay inta aanu ka ogaanayna ciddii amarka bixisay iyo labadaa nin cidday ahaayeen oo annagu aan ognahay cidday ahaayeen laakiin aan isaga fursad u siinayey marnaba ma joojinayno qofkii qalbi dhagax dhiibay ummadda soomaaliyeed ayuu barqadii iibsaday kulligood cabdullaahi sanbulooshe wuu carari karaa taleefonka wuu debin karaa wuu ka bixi karaa laakiin su-aashu weli way taagan tahay ummadda soomaaliyeedna qalbigeeda ayay ka guuxaysaa waxaan jeclahay barnaamijka